marka hore dhammaantiin dadweynaha sharafta leh ee sida karaamada leh ee wanaagga leh ee xurmada leh noogu soo dhoweeyey degmada Boorama ee gobolka Awdal magaalo madaxdeeda anoo ku hadlaya anoo ku hadlaya magaca wafdiga ballaadhan ee Kudani waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan tacsiyo u dirayaa oo aan ilaahay ka baryayaa in marxuumkii shilka ku dhintay أو كنا حريستو جندي لا يكون رابيو قبر جناو النورو أهلكي يدمان تينا سمري إيمانو كسيو ووقت ضمبه وعاد خلول إلى يساك سجال كبا شوكتين وان جعلا إن أنيم بدن هذلو لكن دبانو دكانيا وحن الله مركورس مرلبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن لبك المدود وهم بانورانيا مدوا أنيقا waxaan idin sheegayaa halkan waxaan imiday sanadkan horaantiisii anigoo raadinaya oo idin sheegay in aanu tartami doono jagada madaxweyne ku xigeenka xisbiga wadani alxamdulillah maanta waxaan ahay musharax u taagan jagada madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga wadani guusha inaan ku guulaysto kursigaasi waxay ku xidhan tahay inteeda badan ree Awdal iyo ree Selal waxaan rajaynayaa sidii uu Cali Aaraye sheegay inaan laba fartiinu inayna laba meelood u qaybsamin ee ay meel kaliya tagayso meeshaasina tahay wadani tahay noqon maayo anigu waxaan ahay musharax u taagan jagada madaxweyne ku xigeenka ma yihi musharax reer ما هي مشرح قبيل ما هي مشرح عد قارة وحنا مشرح وتاجن شجرة مدحوين كحجينك سومالي لان حسبك وطني وحن بلن قاضية إن النقضو ننوسي من تهي سومالي لان قاري لا قارد لو يعدو إلى الله صعفون نقول مايو إذا يوكل سكي مشرح يوكل سكيان waxaan rajaynayaa xilka haddaan ku guulaysto inay Soomaaliland mid tahay inaan cadaaladdeeda nabadgelyadeeda iyo waxbarashadeeda inaan ummadda uga shaqeeyo haddii la yiraahdo idinka mid kaliya idinka codsanayaa waxay tahay midnimo waad ka yartihiin dad la qaybiyo oo wax loo kala sheego idinka kaliya maahine Soomaaliland baaba ka yar dad wax loo kala sheego oo qabiil lagu kala xareeyo oo meel loo kala oodo waxaan idin rajaynayaa inaad midnimadiina ilaalisaan dantiina ku jirta danta Soomaaliland baa ku jirta horumarkiina ku jira horumarka Soomaaliland baa ku jira waxaan rajaynaynaa xisbiga wadani wuxuu taagan yahay isbedel maaha magaca kaliya hatiye kelmadda kaliya hata maaha wuxuu taagan yahay oo diyaar u yahay inuu ka dhabeeyo isbedelkaasi oo ummadda Soomaaliland galbeed iyo bari iyo inta dhaxaba ay wadaagto cid waliba ay hesho wixii xaq u leedahay anna inta dastuurkiyo goliga awoodayda haddii aan kursiga ku guulaysto waxaan ballan qaadayaa inaan ka shaqeeyo sida arrintaasi u xaqiiqoobi lahayd waxaan ka xumahay musharaxa madaxweynaha xisbiga ahna gudoomiyaha xisbiga hadda ahna gudoomiyaha golaha wakiilada oo safar ku maqan oo maanta ay u suurtoobi weyday inuu naga soo qayb galo wafdiga uu ka mid noqdo oo xafladan yimaado laakiin waxaan anoo afkiisa ku hadlaya wuxuu iga codsaday inaan fariin qaaliya oo niyo ah inaan idinka soo gaarsiiyo iga gudooma aad u mahadsantihiin in badan baynu wada hadli doonaa oo aan danta dalka iyo danteennaba ka shaqayn doonaa waxaan idinkaga tegayaa ilaahay hayna nabadgeliyo ilaahay samada haynaga arsaaqo dhulka abaaraha jira ilaahay haynaga soo furto abaaraha